in ka badan 1,000 qoys oo degan deegaankan oo lagu magacaabo Dhinowda hoos tagana degmada Jiriban ee gobolka Mudug ayaa halis ugu jira in dhammaanba guryaha uu bacaadku aaso waxaana jira dad ku sigtay oo laga soo saaray bacaadka hoostiisa. Cabdisaciid Cabdi Nuur Khaliif waa gudoomiyaha degmada Jiriban oo deegaankaasi Dhinowda uu hoos tago waxa uu howlo shaqo u joogay maalmihii u dambeeyay magaalada Garowe. waxa uu nooga warbixiyay xaaladda deegaanka. laakiin ayaga waxa u dheer hooy la'aan waxa u dheer iskooladii oo ka duugmay isbitaaladii oo maxaan ku raadaa ka duugmay xagga dawladdu team baa hadda loo saaray asmati baa lagu sameeyay maxaan ku raaddaa wasaaradii deegaanka ayaa cid u dirtay symbols bay ka qaadeen sidii dhulka loogu beeri lahaa maxaan ku raaddaa dhirtii ku habboonayd iyo qaabka loo saamin lahaa in deegaanka la badbaadin karo iyo in deegaanka hadda meesha ay tahay laga guuri karo iyo sida dadka haddii noqoto in laga guuro dibadejintooda loo diyaar gareyn lahaa. Dictoressa Habiba Nuur Ismaaciil waxa ay sheegtay in xaaladda ka jirta deegaanka Dhinowda in ay tahay arin murugo xambaarsan loona baahan yahay in loo istaago si loo badbaadiyo dadka deegaanka. anigoo ku hadlaya magacayga kuna hadlaya magaca dadka ka soo jeeda Dhinowda maanta waxa murugo iyo dhib noogu filan markii aan aragnay barakaca ka socda magaalada Dhinowda oo dadkii maanta aysan hayn hoy ay degaan waxayna ku qasabtay qaarkood inay buuraha ay fuulaan buurahaas oo u jeeda dhinaca badda taasoo ay tahay dhaxanteeduna ay aad u badan tahay aan laga dhigi karin guri hoy ah. arintaasina marka waxay tahay waa arin u baahan naxdinteeda iyo leh murugadeeda xambaarsan sidaa darteed walaalaha ka soo jeeda meeshaas ee maqlaya waxa aan ka codsanaynaa in aan u istaagno si aan dadkaas aan gurma degdeg ah ugu fidin lahayn. Abuukar Maxamuud Macalin waa xildhibaan golaha deegaanka ee degmada waxa uu baaq u diray dadka ka soo jeeda deegaankaasi kuna sugan dalka gudihiisa iyo dibadiisa. dhibta oo ku hayo bacaadkaas oo dhibaato badan geystay inuu wadooyinka xiro inuu ceelasha aaso inuu guryihii hadii la ku rooyay ay aasmaan dadka ay barakacaan marka waxaan baaq u dirayaa dadka beeshaas u dhashay oo haday qurbo joog yihiin haday wax gadad yihiin haday ganacsato yihiin inay maantay gurma degdeg ah inay u fidiyaan. dhanka kale Suldaan Cabdi Cilmi Cabdiraxmaan oo khadka telefoonka nagula soo xiriiray ayaa dhankiisa waxa uu dawladda iyo cid kasta oo gurmada u fidin kasta dadkaasi ugu baaqay in la samata bixiyo. gaal iyo muslimba wuxuu qabanaya meeshaas waxa ka jira arrin aad iyo aad masiibo ah oo ku habsatay oo dadkaas maanta ilaa dad dhowr kun oo qof gaaraya ayalkaas ku sugan yihiin cid aragtay la waajiyaan inta aragna waan u baaqaynaa waan u sheegaynaa waxaan codsanayaa isin ahaan iyo muslim ahaanba dadka in loo gurmado oo la samata bixiyo biyo ma haystaan kay ma haystaan ciid baa xabaashay haddii ciidda laga qaadi karo oo ciidda laga qaadi karo iyo haddii deegaanayn kale loo soo bin karaba dadkaas awalna gudoomiyaha iyo dad badan baa ka warbixiyey maantana aniga ugu dambayn Suldaan Cabdi Cilmi Cabdiraxmaan suldaanka beesha Sheekhaaleed ama muslimba waxaan ku baaqayaa halka waxa ka jira dhibaato masiibo ah. gudoomiyaha degmada Jiriban Cabdisaciid ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in hawsha deegaanka lagala soo xiriiri doono isku xirka dadweynaha iyo sidoo kale dawladda. xildhibaan Abuukar Macalin iyo sidoo kale Dictoressa Habiba Nuur oo arrimaha deegaanka u dhundaloola. xaaladuna waxa la rabaa markasto oo hawl la wajahayo hawshu waa inay hoggaan leedahay waa inay leedahay cid hawshaasi loogana dambeeyo laguna og yahay. saddexda qof ayaan insha Allah uga dambeeynaa ayaga ayaa maamul ahaan aan la shaqeynaa. shirkii golaha wasiirada ee toddobaadkii hore ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda deegaanka Dhinowda oo qoysaska ku nool halkaasi ay halis ugu jiraan in bacaad uu aaso guryahooda iyadoo ceelashii biyaha laga cabi jiray inta badan bacaadku uu aasay.